السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا قيرتيتو من سلامي عشان كان وحكو سابسن يا عاوة سيدان كمبيوتر كان مقع ugu bedeleen sababta markaa window ka bedeshidba namekaaga u samaysatid sababta computerka magac kale ayuu qaadanayaa sida ugu bedeleed marka computerkaaga markaa windowga ka bedeshidba. Welcome to my YouTube channel. marka sida windowga ugu bedeleed my computer tag ama my PC kadibna properties tag kadibna settingka dooro change settingka kadibna waxaad dooranaysaa change ayaa ku dhufanaysaa sida u bedesho magaca kadibna magaca computerka rabtid inaad u bixisid ayaad ku qoraysaa meeshaas ana dax meesha fiican ku qortay kadibna okay ayaan leeyahay kadibna sidaan ku soo saaraa BIOS-kaaga magaca waa laga bedelaa yes ayaan leeyahay kadibna yes ayaa markii computerkaaga restart lagu sameeyo magaca dib ayuu u bedelayaa ayuu ku yahay ujeedaa ma in dib loo bedeli doono yes ayaa iska leedahay kadibna saa u bedelno computer name-ka dana change ku laabo kadibna more tag kadibna magaca uu rabto u sameey kan ifaham oo yahay kan hadana maxaan ku bedelaa Ahmed Shafee kadib yes ayaan leeyahay kadibna yes aan doornaa kadib computerka waxaan ku sameynayaa iska xir restart now ayaan leeyahay dib ayaan u staraya marka waxaan fiirinaynaa computerka inuu ka bedelo sababta waxay tahay marka window ka bedeshid name u samaysatid laakiin computer name-ka magac kale ayaa ku jiro ujeedaa window uu soo kacay marka magacu qaadanaya ayaan fiirinaynaa marka cashada waxaa lagu talagalay dadka bilowga ee ku cusub computerada ujeedaa magacu qaatay Axmed Shafee magac horena wuxuu ahaa FM laakiin computerka gudaha marka uga shid ayaan si kala ogaanaynaa si aad ogaato mar labaad ku laabo my computer ama my PC si aan ogaatid magacayna ka bedeshay iyo in kale kadibna properties tag kadibna ujeedaa inuu bedelay labadaba inuu computer name-ka iyo full name-ka in labadaba inuu bedelay markaan startiga furo ujeedaa magaca computerka kusoo kacayta waa Axmed Shafee magaca u sameeyay marka insha Allah bidna kalim uu fududahay inaad iska bedeshid marka insha Allah bidna kalim waa 10 bilow ardaydan loogu talagalay computerka cusub insha Allah bidna kalim ka faa'iideyso wanaagsan. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh wa jazaakumullahu khairan.